waxa halkan aynu ku arki doonaa khudbado taariikhda adduunka galay oo magac ku leh. khudbadii xajul wadaa ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xajkii ugu dambeeyay rasuulku xajay buu ahaa. waa khudbad nabigu uu ku tilmaamayo waxyaalaha uu arko waxyaalaha ugu muhiimsan. waxa ka mid ahaa dad yahow isku mid baa tihiin, kuwiina carabta iyo kuwiina cajamta waxaad ku kala fiicantihiinna waa la ka cabsiga kaliya. waxa ka mid ahaa dardaarankii maalinta rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam, waa ragow war dumarka ayaan idinku dardaarmay si fiican ula dhaqmo. arrimo aad u muhiim ah ayuu rasuulku ka hadlayay. waa khudbadaha ugu caansan taariikhda islaamka. khudbadii Taariq bin Ziyad wuxuu hogaamiyay muslima. wuxuu ahaa ninkii furtay amaba ilaahay gacantiisa uu ku furay dalka Spain ee Andalus loo yaqaanay waqtigii muslimiintu ay xukumi jireen. ninkan khudbad aad u cajiib soo jeediyay ilaa haddana la adeegsado hadalladii uu cabiray. ninkani ciidan muslimiin ayuu ka haystay, waxa uu gudbay halka iyo xuduudka Yurub. dabeedna xuduudka Yurub marka uu galay ayaa waxa la sheegaa inuu maraakiibtii badda uu ku dhaafay oo uu gubay isagoo u quus goynaya nin kastoo raba inuu baxsado. markaas hadalladu kulaha waxa ka mid ah ciidan yahow baddii way idinka dambaysaa oo markab ma jiro weeye. ciidankii cadowgiina way idinka horeeyaan oo mar walba waa kuwii idin qabsada ee diyaar garooba oo si fiican u dagaalamo. khudbadda kadib xamaasiga waxaa la sheegaa in muslimiintii ay dib u soo noqon waayeen, hore uun ay u socdeen ilaa ay kala badh ay qabsadeen. waxa weeye amaba intii si badneed bay qabsadeen dalka Andalus iyo dalka Portugiiska loo yaqaano. khudbadii Ibn Abbas iyo khawaarijta. khudbadda Ibn Abbas waxay ahayd khawaarijtu waa qolo cali ku kacsaneed Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu. waxay aaminsanayeen inuu khaldan yahay. marka ciidan fara badan bay ka xayseen waxay dhahdeen dawladdu waan ka go'aynaa si haddaba loo soo celiyo hub iyo qori. waa si maanta qaar badan sameyn lahaayeen laguma adeegsan. waxa loo adeegsaday Abdullah ibn Abbas ama Ibn Abbas ninka loo yaqaano loo diray aqoon-yahan buu ahaa ilaa xad. raggii waa la hadlay si fiican buu qanciyay. ciidankii marka 5 meelood loo qaybiyo, waxaan jeedaa 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood baa soo raacay. meel kaliya ayaa hadhay. awooddu markaa hadalka iyo qancintu nafo fara badan ayaa ay soo badbaadin kartaa. ha yaraysanin markaa. khudbadii baatarigii Urban II ama Urban الثاني Urbankii labaad waa baatarigii sababta u ahaa amaba kiciyay dareenkii iyo xamaasadii reer Yurub oo dhan. ninkani wuxuu sabab u noqday in dagaaladii waqtiga dheer socday boqolaalka sano socday ee loo yaqaano الحملات الصليبية ama dagaaladii macatabo dirirka ahaa oo ninkii ka dambeeyay ninka bidaarta le meesha ka muuqda. ninkaas khudbad cajiiba aduu hadad xataa akhrido aad yaabaysid siduu u akhriyay iyo habka waxa weeye uu soo diyaarsaday. khudbad in badan laga shaqeeyay bay ahayd. dabcan run ahaantiina saameynteeda taariikhda way ku leedahay. khudbadii Qays Saciid ee ninkan waa nin sanadkan 2019 dhamaadkiisii uu xilka qabtay Tunisia. ninkan waxa laga waramaa isaga nin kala soo baxay waana markii ugu horeysay soo baxaan 2 nin oo noocan oo ka socda bulshooyinta xisbi kamay socon. labadii nin way isku dhadhawaayeen, dood baa loo qabtay. cilmiga Ilaahay ninkan waa nin macallina. macallimiintu way iska barakeysan halkaan si ramaanay. ninkan macallinka ahi doodii telefishinka dad badan baa dhageysanaya. waxa ku xiran nin waliba sidoo wax u gudbinayo dadka ay akhrisanaya. waxa dhacday ninkii ku dhadhawaa ee kale la tartamayay maalintaas oo fashilmay. doodii buu ku dhex fashilmay. hadalla aan dadka qancin buu ku hadlay. kalsooni darro hadalkiisa wajigiisa ka muuqatay. si yar oo fudud ayuu ninkan u helay madaxnimadii. markaas dadka qaar waxay dhahdaan war ninkaas haddaanu geli lahayn doodda telefishinka inuu badin lahaa suurtagal ah. waa ninkii kale laga badiyay. laakiin khudbadiisii xumayd iyo habkii wuxuu hadlayay ayaa ninka galaaftay. Barack Obama oo madaxweynihii kan habaarka qabay hadda jooga ka horeeyay. waa nin siyaasi ah Mareykanka aad magac weyn ugu leh, qadarin badanna dadka ku dhexlay Mareykan. ninkan waxyaalo caanka ku ahaa ee hogaamiye dhab ah ka dhigay waxa kamid ah habka hadalka. hiba ayaa ninkan waxa weeye Ilaahay u siiyay. 2004 baa la sheegaa ayuu khudbad cajiib galay. waad heli kartaa dad baadho
inta aanu madaxweyne noqon 4 sano ka hor. khudbadaasi waxay saameyn weyn ku lahayd siyaasadiisii iyo waayo aragnimadiisii intaa ka dambeysay. waxaaba la sheegay khudbadaasi haddaba khudbada 4 sano ka hor intaanu madaxweyne noqon uu galay sabab toos ayay u ahayd inuu ninkan madaxweyne noqdo. marka khudbadu taariikhda iyo hab socodka taariikhda ay u socoto si fudud bay bedeli kartaa.